sodohdeyda waa i nacban tahay. Aniga iyo ninkeyga waa faraxsaneen ilaa ay hooyadiis ka imaatay ee ka qasta nolosheena. Cunugeyga ma u qalantid? Ani ninkeyga waxaa naga dhex bilaawatay dhahday dood. Hooyadiisoo wuxuu u maleeyaa qof oo malaa'ig buubays oo waxa leenayna u maleeyaa. Waxa cunug uur u qaadi laadahay waxa waaye sababtoo ah wuxuu Ilaahay og yahay inaa hooyo fiican noqonaynin. Iyada ahayd waxa daawada igu daldalay si aan uur ku qaadin. Marka adduunyo wax kasta waa la maqlaa. Subscribe halii saaro. Subscribe haddii ii saartid maxaa ka halaaway walaalkey iyo walaashay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. يا أحبابي سيلي هاي مالفيعنو نبضين وأنك الحمد لله إذن كنا وحاني رجينا عافيمات عمر دير أي بهذا السن إن شاء الله سود دواذا الظهري ولجوكتين سود دواذا هدي مالتين قاعد فرنك سود دواذا سبسكرايب كاليغي المامن أنا اللايك كاليسار لايك سلام وايمو وحمانك بس anina waxay ii tahay dhiirigelin videoga waa la jeclaanaa ma fahanteen. Marka aan guda galna sheekaaniha cawada marka telefoonka iigu qoran tahay waa ka akhrinaa kor haddii ka sheeg leh waxaad dhaa maybe ama gagaf text. So hal ii dulqaato sheeko fiican waaye. waxaa la dhahaa title-keeda mise sheekada magaceeda waxaa la dhahaa My mother-in-law hates me. My mother-in-law accessing waxa waaye sodohdeyda waa i nacban tahay allaha mugta sheekada. Maxay u nacban tahay aan isla aragnaba. Aniga iyo ninkeyga waa faraxsaneen ilaa ay hooyadiis ka imaatay ee ka qasta nolosheena. Waa mugtay maxaa ninkeyga baxay. Aniga sheekada waxay ku bilaawatay koobo aniga iyo ninkeyga waa isku faraxsaneen ilaa ay ka soo dhex gashay hooyadiisa nolosheena ee isku qastay iidan. Okay, aan sii wadno. She had got and needed care. waxa way maksay hospital ay ka soo baxday waxayna u baahneed taxadir ama qof oo keer gale oo haayo camal u baahneed ma fahanteen. Okay, let's go. At first it was fine, but then his mother began taking control over everything. Koodii way iska fiicneed. Hooyadii way mogta markay imaatay waa iska toosneed ilaa ay ka bilowday wax kasta iyada intay control mis u taliso wax kasta guriga ka dhaca iyada u talinayso. waxay dhahday you don't deserve my son. Cunugeyga ma u qalantid. waa lagu bilaabo gabadha ma jeedin. Cunugeyga ma u qalantid. She didn't need care anymore. markii uu cabaar la joogo kadib way fiicnaatay ma u baahneen intii oo la sii haayo. wasn't rushed to move out from us. laakiin iyada degdeg siima ku jirino intay baxdo ma barabin gurigeena iska joogtay rabtay. You are a terrible homemaker. My son doesn't need you. waxay dhahday waxaad tahay naag oo maraxeeno naag fiicneen oo guri oo ilaa suubiskiis ku fiicneen ate cunugeygana ma u qalantid ma kuu baahno. waxaad tahay naag noocaaga camal cunugeyga ma u baahnay dhah. It will be better if I cook his dinner. haddii ani wax u kariyaaba fiicano like adi waxa og tahay male waxa ku fiican tahay malahan haddii aniga kariyo
cashada cabada naa karinay dhahdo. Here you go sweetheart. wiilkeeda waxa u dhiyay I made it especially for you. Hoo cuntada kusoo dhawaaway dhaad miiska u saartay. Sweetheart waxa waaday wadnaheega macaankeyga oo camal cunugeeda dhoosa. Hoo cuntadan kusoo dhawaaw. Adaa ku kariye. We start having argument. Ani ninkay waxa naga dhax bilaawtay dhahda. Dood markasta waa doodana dadka isku faraxsanaayaya. Because sababtoo he considered his mother to be an angel. Markasta waxa ku doodin sababtoo waxa way dhahda hooyadiisa waxa u maleeyaa qof oo malaa'ik buubas waxa leenayna u maleeyaa. Everything was getting more and more complicated. wax kasta waa isku sii xirxirmayeen dhahda. noloshii waa isku sii xirxirmaysa. Because I just couldn't get pregnant. waxa dhahda uurna waa qaadi waanaysanaay uurna maba qaadi karin camalno maxaa lahayd hooyada inta iga qaylnaa ninkay waa isku doodona uur arab intii uur qaadana uurkina dhib oo igu noqday wax kasta oo isku xirxirmay marka. This is because God doesn't want you to have a baby because he knows you are gonna make a bad mother. wuxuu ilaahay cunug hooyada waxa dhees mogta hooyada wiilka dhashay sodohdii waxay dhahday waxa cunug uur u qaadi laadahay waxa waay sababtoo wuxuu ilaahay og yahay inaa hooyo fiican noqonaynin alde. markaaseed iyadoo jiifto sariirteedii maanta waxay dhoosa those words hurt me but even more I was hurt. uur la'aanta murugta igu hayse ka badan waxa ii gubay dhahda hadallada hooyo ii dhahday oo ahay wixii oo cunug lagu siin laayahay cause adaa qof xun hooyo fiican ma noqonays ilaahay waa ku og yahay tii. Because my husband turned away from me, I just having problem with my skin. I gain a lot of weight and nothing seems to help. waxay dhahday korkay dhan wuu isbedel maqaarkay nooc kale oo noqday. waacay la dhahday hilib badan ay koree murugta badan waa mogtahay marka waxay dhahday once I overheard my mother-in-law's phone. mara waxa maqlay hooyaday oo ku hadloos telefoon wiilka hooyadiis waaya sodohdii conversation and I was just shocked. waa isku naxay dhahday she hasn't got a clue I feed her hormones. She keeps trying to get pregnant. When will she finally disappear? waxay dhees markay telefoonka waxay ku dhees hooyadii waaya waxa ugu dar hormoonkeeda wax qasayna hormoon waxa waay jirka oo ibn aadamka u kala socdana wax qasay aan siin jiray iyada laakiin waxay ka ogtahay malahan. Then I took one of her special cakes she was making for me to look for, and it was true. She was giving me drugs to stop me from getting pregnant. waxay dhahday keekayaasha oo ay iisu suubin jirta jabka oo ka qaaday isbitaalka la tagay waa soo baare markaas runteeda ahayd iyada ahayd waxa daawada igu daldalay si aan uur ku qaadin. The worst part was that when I told my husband about it, he doesn't believe me and threw me out. tan ugu xun waxay ahayd dhahday markii ninkeyga u sheegay aan dhahay hooyadaasaan yeeshay marka uu i aamini waaye banaankoon ii soo tuuray. Many years
have gone, but I have a happy family now. sanado badan aa kasoo wareegatay, hadda waxaan qabaa family farxad badan. And I'm so grateful that God helped me. waxaan aad ugu faraxsanahay ugu mahadnaqaa ilaahayga ii caawiyey to get away from those people oo dadkaas iga soo waday. marka gabartii familkeeda iska gashay, ilmee haysataa, waay meesha sawirka waxa ka muuqdo mogtay, waxay dhahda ilaahay iga soo wadaaba mahad lahay. marka maxaa inta ka qaadanaynaa guriga oo lasoo dhexgalay sodohyaasha ilaahay ka cabsadaan. sodoh ilaahay ka cabsato waaba tanto xaasid caadi ah, kuwii kale waa iska qeylin jireen, tan waaba caadi ma aha. marka sheekada maxaa ninkaga baxay ma jeclaateen? haye comment ali igu soo qoray, subscribe-kana ii saara. marka adduunyo wax kasta waa la maqlaa, intii oo drugs la siiyo oo uurka la iska ilaaliyin waa tan hooyadana laga maqlay. marka waa waxay la yaab yaasiinka alle waa nin la soo roori. marka bye bye.